waxaanu falanqeyn doonaa cunaqabateyntii maanta ay ku soo rogtay Mareykanka rag ka tirsan mas'uuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya. Sida aynu ka warhayno maanta jawaab ayaa waxa ay ka imaaday dhanka Sacuudi Arabiya iyagoo ku tilmaameen hadalka ah inuu ka dambeeyay dilkii Khashoggi. Dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman ay sheegeen inay ahayd hadallo la soo dhoobay. Mareykanka oo cunaqabateyntan ku soo rogay rag ka tirsan boqortooyada Sacuudiga, dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay cunaqabateyn ku soo rogtay tiro ka mid ah mas'uuliyiinta boqortooyada Sacuudiga kadib markii sirdoonka Mareykanka uu helay warbixin sheegaysa in dhaxal suge Mohammed bin Salman uu ansixiyay dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga Jamal Khashoggi. Cunaqabateynta waxaa ka mid ah in lagu soo rogay xayiraad dhanka dalka Mareykanka isla markaana la xanibay hantida ka taala dalkaasi. balse Mareykanka ma uusan shaacin wax talaabo oo ka dhan ah dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman. Mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa waxa ay dilka Jamal ku eedeysay inuu ka yimid howlgal damiirka ka fog oo ay qaadeen koox sirdoon ah oo loo diray inay wariyaha dib ugu soo celiyaan boqortooyada iyadoo maxkamadda ku taal wadanka Sacuudiga ay maxkamadeysay oo ay bishii September sanadii hore xukun 20 sanadood ah ku riday 5 qofood dib markii hore ay dil ku xukuntay. Khashoggi ayaa sanadii 2018 waxaa si arxan darro ah loogu dhex dilay qonsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Haddaba waxaynu sugaynaa dhanka Sacuudi Arabiya maadaama ay Mareykanku ku dhawaaqday cunaqabateyn raggan ka tirsan ama mas'uuliyiintan ka tirsan boqortooyada Sacuudi Arabiya. wixii faahfaahinaya insha Allah waan idin la socodsiin doonaa.